كاني إتوس إتابسي حقيقة كسب سنة برنامج كان أيام ما أنتوا واحد لنا فنان كإلكعس أياك كصوب بير الدجال كأوده هيو نمع جوكر إيوه داير على سوق بين الراد ملأ بنت هلوك بيلاده halka luqadii la qabtana waxa way dhulka ku dhacaysaa ruuxan ummadii way ku ogaatay waxaan dadkan qabiilka kugu taageeraa is oohinay waday waxa way qofka duuciba waxa way waa loo ceeb qariyaaba dhan Soomaalida wax badan baan ku ceeb qarinay hebel baan nacbahay iyo uqdad qabiil hebel baan qabaa iyo warwada tuugada alqaacida warwaa tuugan kuleeyniyo tuuga weeye ilaahay ka furtay oo ilaahay ka cabsanaynin ummadooda u naxeenin dalkooda u naxeenin dadkooda u naxeenin waxaan leeyahay mar joog waxba kolbaha dhicin sida baalaleyda kolba dhinaca u dhicin baan ku leeyahay maxaa ku soo haray nimayow dadkan cadaalad ka hadla shanta Soomaali qofkii samaan jacal hal soo dhaweysto kii xumaanta jacalna hal iska fogeeyo inka ugu horeeyay horta ceebtiin waxa weeye horta niyo Soomaali idinka baa isku xoog badan wallahi oo billahi wa tallahi xagad ku aragteen adduunka taariikh xun baa niyo idinka hartay wallahi oo billahi wa tallahi ceebowday والله وبالله أطلع وعيب سنتا وان تغني أنا وحوي قف إلهي أبورتي أنا حكومة كرم منها وقف نوها جبي كرنا منها ماشي قميصة وحطرها يعني أفريقيا ما قام مدحونا وحكوميسين جري وما أنت ماشي قدام بينها أغنى هبل مدحونا هبل أيوة قميصي برادر أنت تدك قميسين جري أنت قدام بين وراه أنت كل أنت أتكحني وين أنت مجري نيو ماشي شرف الوجود الجوجا والله أنا بين كل شيء صان هذا كوسي سعطنا وقبيلة كنت غيرسن yaad ka laandheereysan tahay yaad ka hub badan tahay yaad ka xaniyo weyn tahay ya wala anaga caayda anaga stage u soo kornay meel u soo istaagnay in la caayo caayaan faraxnaaba anaga maxaa yeelay ninka markuu kartilayo codkar u yaal caaya an baa isku sheegeynaa miyaa marka dhimataan camalkiina soo god lama galeysaan maana in la galaayo ma qabiil baa in la galaayo waa maya ma shanta Soomaali aniga marka inta god ila galeys waa may camalkeeda ummadiisa inkaarta ummadiisa ku dhacday asagoo dhan weershu noqdo weershu wallahi ina been ku sheegeen ina jaab ku jire ninka hata u soo diri jiray inta propaganda u soo diri jiray anigu ahaa baraha bulshada Facebook maxay isticmaanta ma garat runta way idin dhibtaa Soomaaliyeed yo daayir cali soo dagaalkan ayaa dad badan labada dhinac ayaa loo kala jabay dagaalka ayaa isku bedelay dagaal u dhaxeeyo dadka Soomaaliyeed dhaxdooda oo qolo ayay u danaaninaysaa dagaalkana aad ayuu u sii xumaanaya marka sii dambeeyo qof baa ku soo biiraya magac leh dagaalkan oo ka bilowday Sharman Boy markii labaadna isku gadiyo dagaalkan dhinaca kale u wareegay oo ku wareegay dagaalkan ayaa sababtaas dad badan ka yaabisay nimca Joker oo taageerayaal badan heshay Daahir Cali Sow oo asigana taageerayaal aad u badan haysto ayaa dagaalka waxa hadda isku soo qaadeen fanaanka afka dheer amba ilkacas oo qof aad u dagaal badan qofkoo la dagaalanay hilfaha u guro Daahir Cali Sow oo nin aan dab yar shidaynin oo ninka dadka ugu xoog badan baraha bulshada aadna looga cabsoodo maadaama oo Sharman Boy YouTube-kiisa ka soo dhaxadlay habeen dhaxdaasna oo ka soo dhaxadlay Facebook oo ninka la leeyahay Daahir Cali Sow ayaa awoodiisa banaanka soo dhigay maadaama uu baraha bulshada muddo dheer ku dhex jiray yaa guuleysanayo yaa taageersan tahay ma ilkacasa ma Daahir Cali Sow ma nimca Joker ma Sharman Boy dagaalka waa dhinacyo badan yahay dhinaca taageersantaa hoos ku soo qor waa dagaalkii Daahir Cali Sow iyo nimca Joker oo hadda ku soo biiray fanaankii weynaa ilkacas dagaalka oo aad u sii xumaanayo baraha bulshadana dagaalkii ugu dheeray noqday waxaan ku leenahay asxaabteena ku xiran barteena YouTube-ka waxaan soo tabinaynaa markasta barnaamijyo aad iyo aad u qiimo badan maadaama aan ugu xirantihiin xaqiiqooyinka ugu dambeeyay ayaan soo tabinaynaa daawasho wacan waa barnaamijkii إتوس إتابسي